habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan bal caawayo habeen kale weyn Manchester City vs Liverpool waa habeenka Anfield mar kale halkan la isugu imaanaya Pep Guardiola kooxda aad ka dhibto waa Liverpool waa kooxda ugu yaraan 10 ciyaar uu ku horimaaday oo uu ku dhibaatoonay ama guulaha ugu yar ka gaaro Jordan Klopp iyo Pep Guardiola ayaa isgacan qaadi doona wariya Klopp halka kugu sugaya miyaadan u jeedin Klopp wariya miyaadan Klopp u jeedin Klopp xaqiisa aadaya hadda isqabanaya labada nin Guardiola ninka ugu badan ee guuldara ka soo gaartay waa Jordan Klopp waa tababaraha guuldarada ugu badan ka soo gaartay weeyaan tartamadoo dhan 8 jeer ayaa Guardiola la garaacay oo guuldara ka soo gaartay ninka kan ee lagu magacaabo Jordan Klopp labada kooxood ee tartamayaasha ugu cadcad EPL-ka sanad walba la baasay saddexdii sano ugu dambeeyay markan waa De Bruyne markan waa kan ciyaartoyga Jesus haya Gabriel haya Jesus Allah Kevin Allah De Bruyne wa De Bruyne ya no waa laga diiday mar kale waa loo celinaya still waa diidaya James markan waa Salah waa laga qaaday isaga هيا كانسيلو هيا برناردو سيتي ولي عياريسا مال في عن غريليش استيل جاي نو هندوبا عياريا مركيسا مركان وا ليفربول هيا دياغو جوتا مركان وا ماني محمد يوسعتي waa laga dhaxgalay markan waa Bernardo Silva City ever Liverpool ever markale oo Maxamed Salah baa ciyaaraya Maxamed afkore goolka meel fiican baa loo dhigay Manesado oh 1-0 Liverpool waa gaartay goolka habeenka ciyaarta hal mar bay ku dilayaan oo ay fursad kugu helaan ciyaarta Jordan Klopp baa ku dabaaldegaya Anfield marka ay Mane iyo Salah ay goolka hortaagan yihiin way adag tahay in aad habeenku weesha ku ciyaarto City ugu dambeeyay waa la gaaray goolkeeda waa taan kula habeenku maqaar la ciyaaro waxba ma tarayo hogaanku Liverpool baa habeenku qabatay Sadio Mane ayaana ku soo habeenku haddii Liverpool habeenka ku adkaato Liverpool waxay cadeynaysaa sanadka inuu yahay sanadkeedii kooxda horyaalku qaadaysa habeenka ceenkan oo kala bay badisaa hogaankeeda bay si xajistaan still waa kooxda aan wali laga badin Maxamed baa meel dhigay halka buu u dhigay Mane wiilasha cajabeed baa isla ciyaarayo walla si fiican baa loo soo dhaafay Joe Cancelo iyadoo lagu dhex qaaday laba nin halka baa loo dhigay iska ciyaara leeyahay goolkan dhalaynay iska ciyaara Bruniga Manuel goolkan dhalaynayo Sadio Mane ayaa dawmariye goolka waana dhiigi ugu horeeyay Anfield looga daadinaya habeenku Manchester City Jordan Klopp waa tababaraha in badan garaacay taariikhda Pep Guardiola 8 jeer waa in ka badan tababara kasta halkan waa Anfield Liverpool goal Manchester City ever Jesus Gabriel Merfian oh Foden oh wow 1-1 Manchester City back way soo laabatay City waa wax kale ya ha kula ka kanu hal gool marna ma celin karayo hal lama noqon karayo iyagu waa Manchester City walla way soo laabteen wiilkan Fodena still garoonka uu jecel yahay sanadkii horena saaruq buu ka dhaliyay marka koowaad Fod maxaa yiraahday Bernardo kadib De Bruyne ha qabsado Jesus bariya si fiican buu ciyaaray Allah isla wareystay halka u dhigay lug bidxad weeyaane Allah saaruq buu ahaa Lori Sani waa hadda ka hor sidoo kale ugu dhaliyay gool waana sanadkii ambitiga laga jibinay Liverpool ee guriyada lagu garaacayay City horyaalku qaadaysay habeenkuna waa kano Allah ilaahay amarkii Foden wow iska dhaafay Alisson yaalo wuxuu kaba qaban karo goolka ruti 1-1 oo markan Salah si fiican buu yeelay oo Maxamed mar kale oo wax kale oo wow absolutely goal Liverpool laba goal Manchester City goal waa goal laafay Eva markidood mid noocayo kala ah Maxamed Salah koodan wajiciyay gabi hambta wana markii shanaad oo halkan goolka ka dhalinayo wana habeenku caawiyo goolko Allah ilaahayo hadaad gambarka ugu fadhin karto goolka ayaa waa gool cimaamadiisa aanu marna la haysan karin waa waraysi cad uu habeenku Allah ilaahay buu ku macdinayaayo waa kan meel fiican dhigay ciyaartoyga Liverpool Jones intuu laba saddex isla wareysay buu soo dhaafay markaaba halka loo dhaafay midigtuuna ku dhaliyay Allah ilaahay amarkii gool buu ahaa wareysi buu ahaa runtii Foden Cancelo iyo hatta Laporte buu ku daray gool hayuu dhaafiyay sanadka kan waxay cadeynayaan Allah ilaahay amarkii waa kan Cancelo Bernardo iyo waliba Foden la soo dhaafi ayaa Laporte loogu daray markaa buu lugta midkeed ku dhaliya goolka
tanu cid kasta ma samayn karto geniuska saaxirka ah ee Salax baa samayn karaya waa Maxamed Salax waa wiil carbeedo cajab ah cimamadiisa la haysan karin muslimka maanta banooniga ciyaara waa kan ugu khatarta badan ee horyaalka ugu shidan caalamka ee ABL-ka sanad kasta 25 gool 23 gool inteedii qaadaya Liverpool taariikhdeeda kala kiciyay meel fiican Kevin De Bruyne baa ciyaaraya markiisa Allah maxaa soo soconaya haya Foden baa loo dhigay haya Foden haya flip oh Kyle oh De Bruyne toto Beb waa dabaaldegaya 4 gool fantastic habeenku waa waalanayna maqaalkana waa la yaaqay City waa wax kale hadday Liverpool hogaamiso City waa soo laabanaysay hadday mar kale hogaamiyaanna City waa soo laabanaysay still 10 daqiiqo haysanaa wali riwaayad baa soconaysa waa labada kooxood aan ugu jecelnahay ABL-ka waa labada koox markay ciyaarayso garansi ay tahay Liverpool vs Manchester City equal goal wayaan حتى ما تبغى علي كروايو جول هيا أليسون علي ورابي بوردي مركبوا جول كالكالي صاروخ بوها كيف يا غاي دبرون يا غاي هذيك هو مقاربان نقواليان لبضا كانوا كوحود استيل مركله والله كما دنبايست عيارته قرصور انو قبقبيا لغا ياب إلوكتودو كجرتو ها واي سمينيا والله كو دنبايا عيارته فورتور كلا باي هليان يا فرين بو لبخيا وهادو إلوكتودو كو دمايبا وان بو نو استيل سيدا يكون دمانيسا habeenka asxaabtaay waxaan idin leeyahay siisanka kulanka ugu fiicnaa daawatane bal Chelsea hogaamiyaasha Premier League caawa loo dhaafo reer Chelsea gambar bay idin dhigteen caawaydu ku adkaayeen ciidaha kan waxay yiraahdeen no annaga hogaanku ayaan la baxaynaa bay leeyihiin marka xulka la aadayo gambar bay dhigteen خلاص Liverpool 2 gool Manchester City 2 gool sideed ciyaar ugu dambeeyay labadanu ciyaareen City ayaa kooxda ugu badnaan abadkaatay 3 jeer waxa la galay baraj 3 jeer hal bay Liverpool adkaatay